سلطانka Brunei حسن البلقي معز الدين وعبد الله waa shakhsi u jiheeyay dalkiisa nidaam ah ilaalinta iyo ku dhaqanka shariicada islaamka wax badan oo ku saabsan suldaanka bulshada caalamka ma ogo maxaa yeelay waa shakhsi adag oo qarsoon oo aan dhay lagu helin xogihiisa gaarka ah balse muuqaalkan ayaanu ku soo ururinay inta laga diiwaan geliyay suldaankan hantida iyo awoodda badan wuxuu dhashay 15 Luulyo 1946 waana suldaanka 29aad ee Brunei wuxuuna suldaan noqday 4 Oktoobar 1967 kolkaas ilaa hadda wuxuu xukumayaa dalka yar ee Brunei ee dhaca Aasiya gaar ahaan waqooyiga jasiiradda Borneo dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka uu wali ku haray nidaamka ku saleysan dhaxaltooyada waana dal yar oo qani ku ah naftada iyo gaaska dabiiciga Sultan Hassan al-Balqi hadda wuxuu isku hayaa jagooyin kala duwan oo kala ah ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga wasiirka maaliyadda iyo hogaamiyaha arrimaha islaamka ee dalka Brunei amarkiisa waa mid biyo kama dhibcaan ah sida ku qoran dastuurka Brunei hogaamiyaha dawladda waa Sultan Hassan wuxuuna dastuurku siinayaa awood fulineed oo buuxda sanadkii 2017 ayuu u dabaaldegay 50 sano guuradii ka soo wareegatay markii uu xilka la wareegay dhaxal sugaha koowaadna waa al-Muhtadi Billahi al-Balqi oo ah wiilka ugu weyn caruurta uu dhalay Sultan Hassan suldaanka ayaana dhalay 5 wiil iyo 6 gabdhood kadib markii ay kala tageen naxaaskiisii koowaad ee Maryama wuxuu guursaday 2 xaas Sultan Hassan wuxuu adeer u yahay wiil lagu magacaabo Faiq al-Balqi oo ah ciyaaryahan ka tirsan kooxda sanadkan wacdaraha la soo baxday ee Leicester City marka lagu weydiiyo waa kee xidiga ugu taajirsan kubadda cagta durba waxa kugu soo dhacayaan Ronaldo iyo Messi laakiin sidaasi ma ahan marka la eego wiilkan dhaxalkiisa iyo qoyska uu ka soo jeedo ee hodanka ah isla markaana baabuurta dahabka ah ku socdaan Jeffrey al-Balqi oo la dhashay Sultan Hassan ahna aabaha dhalay wiilkan ciyaaryahanka ah waxaa la wariyaa in 15 sano gudahooda uu ku qarash gareeyay adduun dhan 15 bilyan oo pound markaas oo uu ahaa madaxa wakaaladda maalgelinta Brunei sidoo kale waa shakhsiga 35 milyan bil gudaheeda ku qarash gareeyay asigoona iibsaday baabuur saacado iyo qalimaanta dahabka ee cadcad qoyskan dhanka siyaasadda oo kaliya ma hogaamiyaan wuxuuna wiilkooda ciyaara kubadda cagta yahay kabtanka xulka kubadda cagta Brunei Sultan Hassan waa mid haysta hanti aan caadi ahayn marka la eegana kuwa ku fadhiya kuraasta la kala dhaxlo waa midka labaad ee ugu taajirsan waxaana ka taajirsan oo kaliya boqorka Thailand waxaana Sultan Hassan 2011 hantidiisa lagu sheegay 20 bilyan oo dollar inkastoo ilaha qaar hantidiisa haatan ku sheegaan 40 bilyan oo dollar waana hantida uu sida gaarka ah u leeyahay waxaana halkii ilbiriqsi soo gasha $100 oo kaga timaada dhanka naftada iyo maalgashiyada uu sameeyay wuxuuna degan yahay mid ka mid ah qasriyada ugu waaweyn uguna raaxada badan wuxuuna qasrigiisa ku ag yaalaa wabiga Brunei gaar ahaan koonfurta caasimadda dalkan ee Bandar Seri Begawan wuxuuna ka kooban yahay qasrigiisa 1788 qol meelaha qaar ee qasrigaana waxaa lagu dhisay dahab waxaana la sheegaa inuu leeyahay 1932 baabuur oo qaali ah mashiintinta lagu jarto oo lagu iibinayay magaalada London ayuu kala baxay lacag gaaraysa $25,000 diyaaradiisii caadiga ahayd waa uu iska bedelay wuxuuna gatay Boeing 747 asigoona ku iibsaday lacag ka badan $100 milyan suldaankan kadib markii uu xajka tagay 1987 wuxuu go'aansaday inuu dhiso masaajidda dhowr ah oo waaweyn wuxuuna suldaankan si weyn u soo shacbaxay kadib markii uu dalkiisa ku soo rogay shariicada islaamka magaalada caasimadda ah waxaa ka muuqdaan masaajiddo aad u xardhan iyo xarumo lagu barto diinta islaamka Sultan Hassan sanadkii 2015 wuxuu ku amray kirishtaanka yar ee Brunei ku sugan in dabaaldega ciidooda aysan soo dhaafin aqaladooda qofkii muslim ah ee lagu arko asigoo la dabaaldegayana in uu mudan doono xabsi dhan 5 sano